ceel mahwi ahaan jiray mid aan gu iyo jilaalba go'i jirin xooluhuna ka durduuran jireen haatanse xaaladiisu gabaabsi ku dhowdahay Warweyteen ceelkaasina toga Warweyteen la yiraahdo ku yaala xoolihii ku soo arooray waxana waa noqdeen waxana waa ooman yihiin waa dhuraal loo labagelinsado mararka qaar inta u soo aroortana gobolku ugu dhaco xoolaha oo bar ooman yahay Warweyteen anigu sabankii aan dhashay wadaamaha waa la marin jiray lama dhuru jirin xataa ilaa 5 af buuna ahaa haddana afkaas anaa qoday midigteeda ku qoday biyahana waxaan ku gaaray hogaan waa intee waa 4 mitir xoolihii haatan ku soo arooreen waxna dusha lagu celiyay waxna way u jeedaan tiro ka dhowr laasoo halkan ku yaalay ayaa awdmay kuwa ayaa biyo la'aan looga tagay isha kaliya haatan naf la bidayo ayaan sii salfogeyn oo aan rajo weyn laga qabin in maalmo badan la sii cabo ceelkan taariikh dheer buu leeyahay oo ilaa iyo taariikhdii daraawish ku siman waa ceel qarniyo soo jireen oo ahaa afaf badan buu ahaayo kala sareeyo ilaa iyo 5 anigu kulli intaan ku arkay buu ahaa intaan soo gaaray ceelkaas ceel bilu ahaan jiray hadeerna maanta hal af baa ka irmaan oo 5tii af oo isdaba joogay hal af baa ka irmaan afku isaga lafkiisa culays baa saaran oo biyihiisii aad bay hoos ugu dhaceen daraaraha qaar waa u go'a dhobaqaad ayaana loo baahdaa itaalkooda waa ay dhaaftay dhismaha ceelkan inta ka cabta qalab ay adeegsadaanna warkiisaba lama sheegin si dhibaatada biyo la'aanta looga baxo shacab iyo dawladba garabkoodu waa daruuri dinacdan hayaan baa la yiraahdaa dawladuna waaba hayaan haddaanu isku soo laabanay marka madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne shacabkaagii waxa halka ku cabanaya dhibaataduna inta waa ka fara badan waxaanu doonaynaa si degdeg ah inaad noogu timaad war madaxweynaha ma sugaysaan dhamaantiin kulligiin ma sugaysaan madaxweynaha waxaan ahayn sugimayno meesha ka sugimayno madaxweynaha waxaan ahayn waxaad ka sugtaanba waa madaxweynaha insha Allah billahi kariim meelo badan buu wax ka qabtay isaga gacantiisa ku geeyay waxaanu marka doonaynaa dalka iyo dadka in sida loo dhaamo waad aragteen ceelkii shacabkii inuu dhawaaqayo waad aragtaan Puntland waxa lagu dhisay hasha cadkeed iyo caanaheed ayadana lagu difaacay dalwadii geelan wata saaka qoraal ma soo bixin markii la horay wata ololisa ayada ka reeba halkan waxaan uga baahanahay dawladda iyo dadka islaamiga ah inay ceelasha noo qodaanin Warweyteen wuxuu ahaa ceel soo jireen buu ahaa oo tan iyo dawladda inay siyaad bar soo shaqayn jiray maanta xoolihiisa ay ugu ooman yihiin waxaas aanu sheegayna anagu reer baadiyaanu nahay been ma sheegno waxa aanu sheegayno in wax laga qabto Warweyteen waxa uu dhacaa qiyaasta 30 kiiloomitir koonfur bari caasimadda Puntland Garowe waana ceel ku yaal dhul daaqsimeed cagtu ku badan tahay sidoo kalena waa marin meelo fogfog xooluhu uga soo arooraan haddii biyihiisu go'aan haraad halis loogu jiro Cali Dhange Jubaland TV Garowe